السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي علي عامر حسن مركل ay kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan jeclahay inaan wax ka sheego wax badan oo khalad ah bulshada dhexdeena ka jiro oo xad ku saabsan xagga dawada loo yaqaano Loperamide ama kaniiniga la yiraahdo Loperamide ee loo isticmaalo diarrhea anti diarrhea. Marka hore intaan sheegin khaladaadka jiro kaniinigaas laga aaminsan yahay ama bulshada dhexdeeda khaladka looga arko ee ku dhex faafsan waxaan jeclahay inaan marka hore sheego Loperamide maxaa la yiraahdaa isaga marka hore isla fiirino sida uu maxaa la u shaqeeyo iyo waxa uu isaga dabcan Loperamide horta marka hore generic namekiisa waxaa la yiraahdaa dawadaas ama chemical namekeeda Loperamide 2 mg ayaa loo yaqaanaa brand namekeedana waxaa loo yaqaanaa magacyo badan loo yaqaan laakiin magacyada ugu caansan badanaa waxaa kow ka ah waxaa la dhahaa Maloxi Diamond iyo Diamedki caadiga ma laakiin Diamond daawada la yiraahdo waa brand name-ka Loperamide iyo sidoo kale waxaa kale loo yaqaano maxaa la dhahaa anti diarrhea caadi magacaasna loo yaqaanaa marka Loperamide chemical name caadiga oo standard adduunka dhan la iska wada yaqaano waxa weeyaan Loperamide 2 mg ama kaniiniga Loperamide la yiraahdo ee 2 mg meel kasta oo tagto Loperamide hadaa tira waa chemical name-ka loo yaqaano Loperamide marka maxaa la dhahaa loo isticmaalaa maxaa loo adeegsadaa markii maxaa la dhahaa dawo ahaan wax treatment lagu sameeyo Loperamide waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo shubanka loo isticmaalaa ama shubanka ay la socoto maxaa la dhahaa saxarada marka shuban la socoto kale ayaa lagu daweeyaa Loperamide kaniiniga la yiraahdo marka kaniinigaas anti diarrhea waaye daawada la yiraahdo Loperamide marka Loperamide marka yacni goorma macnaha loo aqoonsaday inuu dawo active yahay oo shaqeynayso inay tahay goorma maxaa la dhahaa la waafaqay sanadkii 1976 ayaa hay'adda ama wakaaladda qaabilsan cunnada iyo dawooyinka magaceedana loo soo gaabiyay FDA oo laga wado Food and Drug Administration lagana leeyahay Mareykanka wakaaladaas waxay yacni saldhigeedu yahay oo laga leeyahay Mareykanka FDA ayaa la yiraahdaa Food and Drug Administration ayaa loo soo gaabiyaa sanadkii 1976 ayaa waxa ay yacni sameysay ama ay cadeysay in dawada la yiraahdo Loperamide ay tahay drug prescription drug dawo maxaa la dhahaa dhakhtar uu qori karo oo active ah dawadan maxaa la dhahaa in la isticmaali karo oo prescription drug ay tahay iyo sidoo kale dawo ay noqon karto OTC waxaa loo soo gaabiyaa over the counter dawo ayadoo macnaha dhakhtar qorin farmashiga laga iibsan karo maadaama shubanku mar walbo yacni uu yahay wax iska easy waxaa lagu daweeyaa dadkuna ay fududeystaan in dhakhtar asgoon qorin dawadan farmashiga inta la tago la iibsan karo si loogu joojiyo shubankii marka FDA 1976 waxay cadeysay 1976 waxay cadeysay in dawada la yiraahdo Loperamide in ay tahay dawo prescription drug ah iyo inay tahay dawo OTC ah ama over the counter dawo yacni without doctor la isticmaali karo marka kaniiniga marka yacni Loperamide la yiraahdo haday sharobata haday kaniini tahay waxaa laga heli karaa meel walba ama pharmacy walba ay available ku tahay iyadoo dhakhtarna ku soo qoranaya isticmaali kartaa maadaama anti diarrhea ay tahay shubanka lagu daweynayo side effects-ga ay leedahay maxaa kamid ah dawadan ama yacni warning-ka digniinta aan ka sameynayno maxay tahay dawadan haddii aad isticmaasho adigoo waxyaabaha qaar yacni ama xanuunada qaar qabtid dawadan lama isticmaali karo haddii large intestineka inflammation oo ka jiro colitis ulcerative colitis wax la yiraahdo jiro haddii yacni large intestineka ama colonka yacni caabuq oo ka jiro inflammation oo ka jiro Loperamide ma isticmaali kartid sidoo kale Loperamide ma isticmaali kartaa haddii ay jiraan bloody diarrhea ama bloody and stool diarrhea haddii saxaradaadu dhiig la socdo ma isticmaali kartid sidoo kale yacni Loperamide ma isticmaali kartid haddii ay jirto dysentery with stool saxaradaada haday yacni xal la socoto oo macnaha wax jiidmaay ay la socdaan ama shayga la dysentery bacteria la yiraahdo qofka hadduu qabo ama loo maleynayo xataa oo dysentery lagu arko Loperamide lama siin karo absolutely marka intaas waa inuu qofku ku baraarugsanaada haddii inflammation uu ka jiro large intestineka ama ulcerative colitis oo bog colonka ay ka jirto ama caabuq uu jiro inflammation uu ka jiro mindhiciraha qaybtooda largiga ama kuwa waaweyn
ma la siin karo. haddii sidoo kale saxarada ay la socoto maxaa la dhahaa dhiig lama siin karo lobormed qofka. haddii sidoo kale dysentery ay jirto saxaradaada ay jiidmayso ama xal ay leedahay ma isticmaali karta ama lama siin karo lobormed qofka. sidoo kale daawadan lobormed la yiraahdo cadadka ugu badan haddii laga qaato maxaa imaanaya haddii qofka mointi badan uu qaato ama muddo badan uu soo celceliyo qaadashadeeda oo yani number badan uu ka isticmaalo maxaa dhacayo. waxaa dhacayo wax la yiraahdo health serious heart problem, yacni dhibaatooyin caafimaad oo aad u daran ayaa wadnihii ku imaanayo. marka serious health problem ayaa imaanayo oo xagga wadnaha ku yimaado. marka midda kale yani mointi badan kulama uu qofka qaato lobormed waa kulama uu jirkiisu sii galo maxaa la dhahaa mood ama qofki inuu yani asidan dawaqmo qof iska maqan uu ahaa disconvertible ah uu noqdo. yaa qaadan kara marka lobormed? lobormed waxaa qaadan karo absolutely wixii ka weyn 2 sano. dawadan prescriptionka yani markii dhakhtarku uu sameynayo qofkii 2 sano ka yar looma qoro dawada la yiraahdo lobormed 2 mg. marka lobormed waxaa qaadan karo patientska yani 2 years and elder than jiro 2 sano iyo wixii ka weyn jiro. leafletka haddii aad fiiriso kaniinigan lobormedka la yiraahdo ama sharobooyinkiisa waxaa ku qoran not recommended less than 2 years, lama siin karo ama lagulama talinayo inuu qaato qof ka yar 2 sano. marka dadku marka qalad badan ay ka fahamsan yihiin dawadan la yiraahdo lobormed. waxaad arkaysaa haddii aan usoo laabto qaladaadka yani laga aaminsan yahay kaniinigan lobormed la yiraahdo, waxaa arkaysaa qof markuu kuu yimaado uu ku yiraahdo cunug maxaa la dhahaa yariisa qof siinayo kaniin lobormed, cunug 20 beri dhalan anigan ayaa arkay, cunug 10 beri dhalan, cunug 20 beri dhalan, cunug bil dhalan ayaa waxaa la siinayaa kaniiniga lobormed la yiraahdo, laleeyahay shuban ayaan uga joojinaya. qof ayaa kuu imaanaya tusaalehaan wuxuu ku leeyahay isii kaniini shuban joojiye ah. markaad lobormed siiso waana qof weyn oo qaangaara wuxuu ku leeyahay kankii ilmaha waaye kaniinigan yariiska ciyaalka siisa kan muxuu iga joojinaa kan muxuu ii qabanaa ayuu ku leeyahay. waxaasna waa aragti khaldan oo macnaha bahda caafimaadku qaar ka mid ah ay markii koowaad daawadan waddanka markay timid ay faafiyeen. marka ma fiicno in maxaa la dhahaa dawada laga fiiriyo keliya hal dhan in laga adeegsado ama hal dhinac bas in laga adeegsado ma fiicno. qaladaad aad u jiro oo aad uga badan oo maxaa la dhahaa yani aan lagu baraarugsanayn waaye in loo maleeyo kaniiniga lobormedka in dadka waaweyn uusan isticmaali karin, ilmaha yararka keliya la sii karo. haddana qalad waxaa ah warshadii soo saartay waxay kusoo qortay not recommended less than 2 years, lama siin karo ama ma isticmaali karo qof 2 sano ka yar 2 years qof ka yar. marka intaas ayaan kusoo gabaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.